barnaamijka waqtigiisina waa inagu soo gaaban yahay bal inoo soo qabto sheekadii ugu qosolka badnayd sanadkan waa islaantii odaygeeda kiraysay waxaa sheekadaasi iiga waramay khadar cabdi cabdilaahi oo ku sugan dalka Austria. waa dhowahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan qisooyin marka waliba qurbaha la yimaado qaarkood ay mataqaanaa ay xiisa ku gelinayaan baa maxay heeday ayaa jiray oo aan maxay la kulmay waxaa jirtay markaa wiil nin iyo gabadh adigu ayaa iyaguna calashaan reer lahaa oo wada deganaa wada dhaqnaa ninkood wuxuu ka shaqayn jiray dadka maxaa dhahdaa disability-ga ama tusaale ahaan maxay ahayd aan xalaxaadkood kala dhiman yahay ayuu calashaan maxay ahayd baabuur ugu qaadi jiray magacana wuu ula baxay dabeetana adeeg noocaas uu bixin jiray oo mataqaanaaye dawladda iyo maxay dadka caawiya iyo wixii lamidka lacag kaga qaadan jiray marka dadka aan awoodi karin inay socdaan ayuu baabuurta ku qaadaya ama gaboobay ama laxaad kala nacam waa sidaas wey ha meesha kolba doonaya wixii ka adeega u baahan kolba meelaha doondoonaya geynaya sidii buu dabeetana ninkaas ugu shaqeynayay nolol fiican oo wanaagsan buu ayuu ku noolaa reerna waa liya gabadh buu qabaa gabadhiisana barnaamij noocaas oo kalaaba iyadoona leedahay oo laakiin wax kasta uu ka samaynayo dadka waaweyn ee ama dadka disableka ah uu samaynayo iyadoo caruurta iyo dhalaanka ay u samayn jirtay oo guriga ku hayn jirtay oo asna nooc kale dhig care lamid ah khaas karun lamid ah laakiin dadka waaweyn yahay kana waa caruurta yahay marka isaga home care buu haystaa dadkii waaweynaa iyo curyaamiintii buu ku hayaa iyadna day care oo caruurtiiba inta waalidkoodu shaqada ku maqan yihiin ama iskuullada ku maqan yihiin bay sii haysaa deetana halkaas iyaduna business kale ka samaysaa nacam wakaatibna saasaa loo wada shaqaysanayay labadooduba income bay soo xareynayeen oo ay reerka mataqaana dee reerkaasoo kale markan maraykanka ku qiyaasa reerkooduba reer la degi maayo waa ladan yihiin soo maaha aada iyo aad waka haddaba reerkaa tuumbadooda maxay mar lagu jirtay waa maxay ahayd kala deganaayeen xaalkooda okay buu ahaa waxaa dhacay markaa sidii si la ahaadaba fidnadii ay iska wadatay lacagta iyo adduunka iska watay baa reerkii soo dhex galay oo ninkii gabadhii murankoodii iyo khilaafkoodii waxbaa batay dabadeetana halkiiba taafajariqii iyo isqaqabsigii baa yaro batay abakarkii waxay keentay markii dambe in la kala tago haya halka reer baa qoys Soomaaliyeed baa ku burburay oo mataqaanaa maxay ahayd xaaladii ka xumaatay aad iyo aad reerka waa kala waa ku shaka dhaafeed caruurna meesha waa jirtay oo mataqaanaa way haystay caruurna waa lahaayeen waa ka dabeetana dee dunidan dalkii iyo xaggii Africa maaha dunida sharci baa ka jiray ninkaasuu ganacsigiisii iyo shaqadiisii watay gabadhina shaqadeediiba watay laakiin maadaama ay kala tegeen ninkii wuxuu ku qasbanaaday in wax la yidhaahdo family support oo caruur ama children support la yidhaahdo in laga soo jaro lacagtiisa isaga oo gabadhii iyo caruurtii uu ka tegay la siiyo isagoo reerkii furay wuu sii beeliyo weli waa ka gabadhiina inteedii hore waxba iskama nusqaamin ee way usidiiba shaqadeedii iyo amuuraheedii isugu daba dhacsan yihiin haya gabadhii baa dabeetana caruurta haystay baa balkii iyo hargeysa aaday waay xaggaasna u baxday hargeysay dabeetana aaday nin ay iyo inanta xag isxigaan oo ilmaabti iyo caynkaasay yihiin hahe ayay dabeetana aragtay oo mataqaana jaafaa jugle ah oo iska muuqya kuukuusan oo qolyahan guryaha dhisee wastaadinta la yidhaahdo mutacaafi aad iyo aad haye oo waxaan ku yidhi mataqaana iska qaadaa madarga ahoodii biidankeeda ilaahay li maalintu meelaha iyo kuuliga iyo wastaadka iyo guriga la dhisaya helaan maxay ku tuurta maalinta kalena calasha maartay suuqiisa iska dhex maartay marmeeraysta waa ka ku darso ninku reer buu leeyahay 5 caruur reerkaas waa ku culustay xaaladdu waxa yar markaas soo helayo u keenaa waxaasi gabadhu sii kala farsameysay waaba gabadh dadaal badan haye dabadeetana waxa dhacay gabadhan ayaa ka timid dabeetana Mareykan iyo Ohio ka timid dalkiiba timid inaatigeedan bay aragtay biidankeeda caynkana xaalkiisa waa kan waa sidan halkiiba dabeetana shukaansi iyo sheekay iyo amuura galeen ma ninkii 5 caruur lahaa qaadaama dhargahaaba shukaansi kala aleelayaba nacam billah burbaaba lagu heshiiyey min yaro wadaaba war haye ninkan oo daadu waxa ma bixinaysid biilna ma ahaysid masruuf ma ahaysid xitaa ku meheril ma ahaysid adigu ninun baa tahay gabadhana wax ma bixinaysaa waaba wax lagugu dariyay haye min yaro lacagteedina wadata dabeetana halkiibu hawshii la galay dabeetana maxay ahayd meher waxbaa dhacay gabadhii 5 caruur ay haystay iyo maxay ahayd haysatay halkii masayr oo cirka marto buuftaan oo xaabay masayr iyo joojinay ama masayr tam cirka haade waxa weeyaan cid waxba kama qaadin gabadhina adduun bay sidaayo ninkii u dhiibtay durtaba ninkii baa dhalaalay oo marya fiican oo maydhay oo feedhay oo magarasa dhalaal yeeshay baa sheeka baralay yaa iskaranaya haye yaaba iskaranaya dabeetana gabadhiina halkii wax yar hanaaftar mala la yiraahdo iyo waxba fartamarkii dambe laga soo adu ninkii gabadhii dambe guursi la qalgal waa ko gabadha noqotay oo hay'adii meeshada ku noqoto ninkii dana biil soo qortay haye bay ku 500 lacag gaaray soo biila haye hada $10 buu maalinku shaqeeyay heli jiray hay'adi 1500 bay gabadh oo biil soo qortay ninkaas meel roon mara ahaaye cirkaasuu ninkii gaaday dabeetana waa ka waxa weeyaan lacagtii yara kala farsameeyay
gabadhii reerkaiyo iska danyarta gabadha hayada carruurta haysateen 600 buu u dhiibay. waa kow dabeedna waa gabadh dhulka kusoo yaraaday weliga 600 iyo wax lamid arag oo biira oon werwer lahayn. hasal free bay yidhahdaan qolyaha maraykanka joogaaye. maxay yidhahdaa hasal free calaa waka hasal free hadda markaysa joogo weeye. dabeetana waxaa dhacay gabadhii markaa 600 loo qoray ee de marka horena 30,000 shilin iyo 40,000 shilin maalintii lagu biilin jiray. hahe ayaa dabeetana shaxshaxdeeda badatay oo iyada qudheedu labisatay oo dhalaashay oo nuurtay oo kareemo iyo cadare iyo maxay ahayday geerasiriim iyo makeup iyo wax ma marisay. waa kow oo waxaan ku yidhi xaalkeeda cirkaa maray oo gurigii iska hagaajisay oo dahya ku xidhay oo roog soo dhigtay oo sariirtii ma garanaysa. maasha allah waa kow dumarkii jaarka iyo dadkii ogaay in lala guursayn ogaa gabadh xaa ka timi ogaay oo dabeetana mataqaanaayo iyaga oo de u socdo maxaan rabaa mixnad u socdaa. ayuu yimaadeen ayaa hadlaayo oo waa sidee beryahan dee maxay ahayday guri la hagaajiyey iyo bartan iyo kuba mari oo sibir marisa iyo rinji iyo istanbul iyo gogol la bedelaa marka dhammaan laadahay xagee ilaahay wax idinka siiyey. halkay wax ka siiyo gabadhi maxay ahayday meel kale waxba noogama irin odaygii. hahe odaygii baan kareynay. marka ma shirkad bay ka kareeyeen. odaygii baanu kareynay dabeedna kiradii odaygaanu guranaynaa weeyaan xalku. naga muuqdaa labiska iyo quruxda soo kiradii odayga Allah noo barakeeyay. waa tahay dhammaan sheekooyinkaasi iyo kuwo kale aad u badan oo waqtigu inoo saamixi waayey inaynu wada dhegaysano. waxaad barnaamijka caweyska Washington ku maqasheen sanadkan 2017. adiga dhegayste maxay ahayd sheekadii ku xiise gelisay ee aad ka maqashay barnaamijka caweyska? maxay tahay talada aad ku biirin lahayd barnaamijka? maxaad